waxay ogtihiin in heshiis golaha wadashada qaran in la gaaro oo heshiis siyaasadeed oo muhiim ah oo dalkan meesha uu taagan yahay iyo xalaqadan mafraqa ee ku wareegayo ka bixinayo oo tilmaamaya sidii looga bixi lahaa ayaa la gaaray marka de heshiiskaasi fulintiisa halkan ay taala wasaaradihii fulin lahaa hay'adihii fulin lahaa dadkii fulin lahaa waa kuwan marka waxaan rabaa cid waliba meesha ay ka lahayd inay u diyaar garowdo fulinta heshiiskaas wasaarad waliba sidii ay heshiiskaas qaybtii ay ku lahayd ay uga qaadan lahayd inay sida institutionally inay u diyaar garowdo ayadaa la rabaa waxaa kale oo la rabaa kulligeen in shacabka Soomaaliyeed si aan ahayn sidii loola jeeday heshiiskaas oo guracan in loo fahamsiin bal waxaan rabaa marka inaad xukuumaddu iyo wasiiradu ay qayb ka qaataan libaax inay dadka Soomaaliyeed u fasiraan shacabka Soomaaliyeed u fasiraan in waxa loo sameeyay ayaga dartood in dad badan oo mas'uuliin ah oo jeclaa inay kuraas iska sii fadhiyaan in la gaarsiiyay inay muddo hal sano gudahooda inay kuraasta uga dagaan oo dadka ula sinmaan oo ay shacabka Soomaaliyeed marti looga noqdo cidii maamuli lahayd madaxda u noqon lahayd awal hore muddadaas dheeran ku soo jirnay waa ogtiin shacabkeenu asaga marti ah annaga marka waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed fursad qaali ah ayaa u timid chance muhiim ah oo runtii aan soo noqonayn ay maanta haystaan dad marka aad u qiimo badan oo siyaasiyiin ah oo dadkeena ah oo aan jecelnahay ayaa laga yaabaa in ay ama qalad ka dhex arkeen wuxuun uga muuqday ama de fursad siyaasadeed ayna maaragtay laga yaabo malaha inaan ku soo dadajinay dadka qaar waxa laga yaabo malaha inay baasha ugu tala galeen inay muddo baasha ka maqnaatay la si fiican moogtahay oo exercise fiican la soo sameeyay wixii aan malaha soo dhawaaday baan u maraynayaa marka si kasta ha noqdaane dadka siyaabaha kale u fasiraya waxaan rabnaa sida ay tahay saxda ah iyo niyad wanaag ay ku timid iyo sida la isugu soo qanciyay dadkii sameeyayna waa ku mahadsan yihiin in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeedna ay ka faa'iideystaan fursadaas oo soo martay oo maanta hertaan diyaarka u ah anaga marka xukuumadda hadaan waxa waajib inagu ah koow inaan infrastructure sameeyno hay'adihii fulinteeda arinta wala inaga rabaa marka ay soo dhamaato oo hay'adaha iska loo ka soo dhamaato number 2 waxa soo dhan ka horeeya xoreyntii say dadku u codeeyaan oo xuquuqdooda siyaasadeed ay u exercise gareeyaan inaan dalkan xoreyno oo dal xor ah ay ku exercise gareeyaan waa waajibna saaran waay marka hawl aad u adag ah xukuumadan sugaysa marka kacaan siyaasadeed cusub ma noqonay laakiin kacaan amniga suga oo dalkan nabad soo celiya oo deyn cafiskeena oo dastuurkiisa dhameystira oo geedi rays leh iyo deegaan macaan dalka geey ayaa noqonaynaa hadii la yiraahdo taas aan rabnaa inaan ka shaqeeyo